Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maxay dunidu dad badan bilowga dhibaato ee abuureen maanta murugadiisa ay la nooshahay. Runtii bilowga hore nolosha waa mid ku bilaabata farxad, waa mid ku bilaabata murug la'aan. Laakiin marmarka qaar waxyaabaha adigu aa soo bisay ama adigu aa ku dhaqantay ee aadan u arkaynin beri noloshaada inay saameynayaan ayaa noloshaada dambe waxay ka dhigayaan mid murug ku dhammaato. Halkan waa youtube-ka qisooyinka ee Hiigsi Lambar 1. Mar walba waxaa noogu soo gudbiyaa qisooyin aan isleeyahay tiimka ku xiran Hiigsi Lambar 1 wax badan ayay ka faa'iidayaan. Marba marka ka dambeyso qisooyinkana soo gaarayo waa kuwa runtii wax badan aan ka faa'iideyno, waa kuwa dareenkeena bedelayo, waa kuwa marmarka qaar aan isdhehayna sidee ku dhacay. Muhiimaddu waxay tahay inaan kuwaana qaadanno cashirna ay noo noqoto. Hadduu yahay muuqaalka kugu horeeyay, waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saarato si muuqaalada dambe ula socoto, laagaaguna waa noo dhiirigelin. Walaalaha qiimaha qadarinta sharafta mudan ee ku xiran Hiigsi Lambar 1, Allah ka sokow waa idinka mahadcelinayaa, khaasatan gabdhaha quruxda badan ee mar walba xooga iska saara ee gruupka ku jira, muuqaalada share gareeya, aad baa idinka mahadcelinayaa. Qisadan waxaa ila soo wadaagtay gabar ku nool magaalada Boosaaso. Waxay dhahday waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho, waxaan ahaa gabar qoys ladan ka soo jeedo. Bilowga hore noloshayda waxaan ahaa gabar ragga noloshooda ku kaftanta. Waxaan ahayn 3 gabdhood iyo 4 wiil. Runtii markaan dhahayo ku kaftanta, waxaan ahaa gabar runtii ragga iska shukaansata. Laakiin beri waxa dhacaya imaanta waxay yihiinba intaba aanan ogeyn. Waxay noloshaydii yaraanta soo socoto. Waxaan ahaa gabar iskuul la geeyay oo nolosheeda iskuul ka bilaabatay. Markaan soo qaangaaray waxaan ahaa gabar wiilal badan ay shukaansan jirtay. Waxay sida ahaato xaafadii aan deganayn anigoo da'da 18 sano jiro ayaan ka soo guurnay. Waxaan soo degay xaafad cusub. Adigu maraan 7 maalin camal deganahay ayaa maalin maalmaha ka mid ah anigoo suuqa wax ka doonanayo oo adigu 8 saac oo kala tahay quraxdana aaday u kulushahay ayaa waxaan is aragnay wiil. Anigu xaafadan ka baxaye isagan dhanka xaafadeena ayuu soo galayay. Waxay igu dhahay abaaya see tahay, waan fiicanahay. Quraxdan saan u kulul abaaya halkee u socotaa? Waxaan ku dhahay suuqa ayaan u socdaa, dan ayaan ka yeeshay. Markaasuu igu dhahay xaafadda miyaad soo degtay? Haa ayaan ku dhahay, walaal adigu dadka xaafadda degan miyaa kuu xisaabsan? Wuxuu dhahay anigu xaafadan waan ku dhashay. Runtii inta badan dadka waan aqaanaa, qofka soo degane dadka xaafadda iyo dadka soo degay iskama qaldamayaan. Waxay ku dhahay runtii wiil xaafadda ka warhaya ayaa tahay. Markaasuu igu dhahay halkee soo degtay? Markaasaa waxaan u tilmaamay xaafaddii aan deganaa. Waan garanayo dhahay dhowaan in laga guuro guriga oo reer kale ay soo degeen. Waan ogaa, laakiin gabar sidaan u qurux badan inay soo degto uma malaynaynin. Ku sii raaci karaa suuqa. Markaasaan ku dhahay quraxda kululeed aa sheegaysay ee aniga ay leed saacadan maxaan ku soo bixiyay? Adigu hadda inaad suuqa ii raacdo miyaa jeceshahay? Haa ayuu dhahay, adigu inaan qurax kula maro waxba ilama ahan, kaliya ii ogolow inaan ku raaco. Waayahay soo bax ayaan ku dhahay. Aniga wiilkii sidii aan isku raacnay waxaan aadnay suuqii. Wadada intaan ku jirno waan sheekeysanaynay. Waxyaabo badan ayuu markaa i weydiinayay. Wuxuu igu dhahay abaayo adigu hadda xiriir miyaa leedahay ama waa lagu qabaa? Waxaan ku dhahay abo anigu hadda xiriir ma lihi, limana qabo. Okay, markaasuu igu dhahay gabar sidaan u qurux badan ma u malaynaya in xiriir la'aan ay ahaanayso, miyuu hore kaaga burburay? Haa ayaan ku dhahay. Markaasuu dhahay waa doqon wiilka gabadhan sidaan u quruxda badan xiriirkeeda burburiyey. Markaasaan ku dhahay ragga bilowga hore way ku ammaanayaan, laakiin ugu dambeyn markay kaa tagayaan iyagoo wax walba kaa sheegayo oo shalay afkay kugu ammaaneen aa u malaynaysid inuusan ahayn ayay wax kaaga sheegayaan. Markaasuu igu dhahay abaayo ani uma malaynayo adigoo afkii lagugu ammaanay in wax lagaaga sheegayo adiga ammaan nacday, waayo gabdhaha quruxda badan ayaa wax nici kara sidaan isleeyahay. Markaasaan ku dhahay adigu ma ragga ayaa difaacaysa? Markaasuu dhahay maya, laakiin sida ila tahay ayaan sheegay, waayo gabadhan sidaan u quruxda badan ayaa nin xiriirkeeda ka tagaa wallahi isma lihi. Sidaan suuqa ku tagnay alaabtiyan soo gatay oon is soo raacnay. Waxaan sheekaysanaba ugu dambeyn xaafaddii ayaan imaanay. Runtii wejigiisa lidid aad ayaa ka muuqdo, laakiin isaga cabaar kadib wuu iska tiraayay
ugu dambeyn waxaan ku dhahay xaafadan galayaa markaasuu igu dhahay waayahay barashadeena ma halkaan ayaa rabtaa wadooyinka keliya inaan isku aragno lambarkaaga isii markaasaan ku dhahay waan dareemayay markaa ii dhahaysay suuqa ayaan ku raacayaa inaad lambarkayga rabtid laakiin markii le maxaa ii dhihi weyse markaasuu wuxuu dhahay qofka haddii aad abaal gashato wanaag haddaad gashato waxaa rabtid waa ka helaysaa markii haddaan ku dhihi lahaa abaayo lambarkaaga isii waxaa laga yaabaa inaa ii diido haddaa isiisane heerka hadda aa igu siinaysid ma u malaynaya inay ahaan lahayd markaasaan ku dhahay nin wiil yar oo aad u aqli badanaa tahay ugu dambeyn lambarkaygii ayaan siiyey isagana lambarkiisa ayuu isiiyey sidii ayaan ku kala tagnay magacayaasheedaan isku sheegnay runtii wiilka habeenkii wuu isoo wacay mar walba aniga wiilka waa sheekaysan jirnay marka adigu mar 2 isbuuc aan sheekaysanayno ayuu wuxuu igu dhahay haddaan wada fadhiisanno wada sheekaysanno markaasaan ku dhahay xaafadda wax joogo ma lehe bal ka waran haddii aad xaafadda igu imaato markaasuu dhaabay waa ogtahay aniga adee darisaan nahay inaan bannaanka ku sheekaysanno okay waayaan ku dhahay sidii ayaan wiilka aniga isaga ballannay galabkii bannaankan isla aadnay bannaanka ku sheekaysannay runtii wuxuu ahaa wiil yar aqli badan hadal macaan wuxuu dhahay runtii aniga noloshayda wax xiriira ma suubinin laakiin hadda waxaan rabaa inaan xiriir suubiyo laakiin waa inaa adiga ii ogolaata markaasaan ku dhahay xiriirkaaga inaan anigu ku ogolaado oo keliya siduu ku dhacaya waayo qofka aan rabo inaan xiriirka la yeesho waa adiga markaasaa waxaan ku dhahay maalintii aan ku siinayay lambarkayga ayaan ogolaaday inaan xiriirka la suubiyo adigu waxaa tahay wiil qurux badan akhlaaq leh aadna u wanaagsan wixii maalintaa ka dambeeyey aniga wiilka aad baan isugu soo dhowaanaynay 2 qof oo isfahmay marba marka ka dambaysa isfahmaya ayaan ahayn waxaan noo bilowday xiriir aad u qurux badan markaas anigu wiil kale xiriir lama lahayn waxay noloshayni socoto oo 2 qof oo aad isugu dhawaaday aan nahay runtii waqtigeena inta badan waan wada sheekaysanayna wiilka xilliga wuxuu dhameeyay dugsiga sare wuxuu bilaabayay jaamacadda laakiin wuxuu ahaa wiil waqti ii hela mar walbana ii sheekeeya waxay nolosha sidaa ahayd ani iyo wiilkii muddo 6 bilood ah aan wada sheekaysanayno oo aniga wiil kale markaas aan shukaansanaynin oo wiilashii hore xaafaddii hore aan ka soo guuray aan ugu soo tagay kanna xaafadan halka wiil aan ka bartay uu ahaa ayaa waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah anigoo guriga habareetay ka imaaday oo waddada soo socdo marka xaafadeena laamiga aad bay u kala fog yihiin markaad gaariga BL-ka ugu soo degto laamiga waa soo lugeynaysaa gaari cad ayaa iga daba yimid cabaar markuu i dhaafay ayuu istaagay markaan la soo simado wuxuu igu dhahay abaayo halkee u socotaa hore ayaan u socdaa markaas wuxuu igu dhahay abaayo maku sii qaadaa markaasaan ku dhahay waan ka xumahay qof aanan aqoonin gaarigiisa inaan koro ma jecli markaasuu dhahay waxaa tahay gabar Soomaaliyeed xilligaan aad quruxda u kulushahay ayaan diidayaa inaan maaragtay kaaga tago waddada abaayo soo bax anigu wiil walaalka ah waxba kuuma dhimaayo markaasaan ku dhahay nin walba oo baawur wata gabdhaha baawurta ayay gashtaan laakiin anigu ma ihi gabdhaha baawurka la gashto ee orado iska bax wiilkii wuxuu bilaabay qaabkan anigu u socdo inuu gaarigana u socdo oo igala hadlo oo igu qanciyo inaan gaariga soo raaco laakiin anigu waan ka diiday ugu dambeyntii waxaan soo soconno waxaan imid xaafadayda isagii wuu istaagay markaasuu igu dhahay abaayo anigu saacaddan gurigayga inaan tago aan qabaysto ayaan seexan lahaa laakiin waxaan jeclaaday haddii aad diiday gaariga inaan anigana sida adigaa u socoto gaarigayga u socdo ugu dambeyn waxaa tahay gabar aad u wanaagsan gabar waxaa tahay nafteeda ilaalinayso sharafteedana ilaalinayso haddii aan ku dhaho lambarkaaga isii waxaa ii diiday gaariga inaad soo korto laakiin inaad lambarkaaga isiiso ayaan jeclahay si fiicanaa u fiiriyey wiil weyn xogaa mas-uulah gaari wato qof dhaqaale haystana way igula ekaa adigu waxaan diidaba ugu dambeyn waxaan siiyey lambarkii halkii ayuu isagana iga tagay runtii wiilkii aniga xiriirka aan lahayn muddada 6 bilood xiriirkeeni wuu socday wiilkaana wuu isoo wacay wuxuu igu dhahay waxaa tahay gabar marka hore runtii jacayl sharafkeeda waayo gabdhaha inta badan haddii la dhaho gaariga soo kora way soo koraan kama fikiraan qofkan maxaa kala kulmaysaa adigu waxaa tahay gabar aad u aqli badan anigu xaafadda ayaan kula deganahay waxaan ahay wiil shaqeeyo runtii wiil walbana wuxuu jecel yahay gabar sidan oo kale inuu helo si naftiisa iyo noloshiisa ugu aamino ilmihiisana hooyo wanaagsan uu u xilo runtii waxaan u arkay gabar wanaagsan inaad tahay waxaan rabaa inaan labadeena wada sheekaysanno haddii aan sheekada isku fahanane kadib aan xiriir yeelanno waxaan ku dhahay waxaa tahay wiil wanaagsan haddaaba hore iga dhehaynin xiriir ayaan soobinaynaa qof waxaa tahay wax fahansan runtii lana socon karo ani iyo wiilkii halkaa waxaan ka bilownay inaan wada sheekaysanno wuxuu ii sheegi jiray xaaladiisa iyo noloshiisa wuxuu igu dhahay abaayo anigu waxaan ahay wiil runtii ganacsada ah hay-adna u shaqeeya alxamdulilah qoyskeena noloshooda waa mid wanaagsan aabahey waa uu dhintay hooyadey ayaa joogto
waxay la dhashay wiilal iyo gabdho laakiin aniga waxa uu ahay curadka reerka noloshoodana aniga gacanta ku hayo waxaan ahay wiil aan hore u guursanin xiriiro waan suubiyey intaan dhiganayay jaamacadda laakiin hadda shaqo ayaan aad ugu mashquulay way jiraan gabdho badan oo ila shaqeeyo oo xiriir ii soo bandhigtay laakiin anigu gabar ila shaqayso ma jecli inaan ma aragtay xiriir suubinno waxaan doortaa inay tahay walaashay laakiin adigu waan kaa helay dabeecadaada iyo sida ma aragtay aad u diiday inaad gaariga u soo korto waxaan rabaa inaan xiriir kula suubiyo siday kula tahay ugu dambeyntii waan ka ogolaaday wiilka inaan xiriir la suubiyo sida caadada ii ahayd weligay waxaan ahaa gabar markay dhiganaysa iskuulka wiilal badan xiriir la lahayd laakiin markaan xaafadeyda ka soo guuray ee xaafadda cusub aan soo degay ayaan iska yareeyey wiilkan xaafadda aan ku bartay ayaan ma aragtay keliya xiriirkiisa ayaan lahaa muddo 6 bilood ah isagana sidii ayaan aniga isaga xiriirkeena u ku bilowday runtii waxaa inoo socday xiriir aad u qurux badan labada wiil ma marka qaar waxaad u malaysaa in wiilal isku dabeecada ay yihiin laba wiil oo runtii midba midka kale uu ka wanaagsan yahay inkastoo wiilka aan bartay koogii uu ahaa wiil jaamacad dhigta laakiin kan uu yahay wiil mas-uul ah familkiisa dhan mas-uulka ah shaqeeya ganacsada ah hay'ad u shaqeeya nolosha ay u fadhiso runtii aniga labada wiil waan isku waday midba markaan la sheekeysanayo waxaan siiyaa dareenkaygii farxad waxaan u muujiyaa inaan jeclahay laakiin xilligaa waxaa xaqiiqa in labada wiil qalbigayga ay ku weynaayeen laakiin aysan jirin mid aniga aan doortay wuxuu xiriirkeeni socdo runtii wuxuu gaaray sanad wiilka kalena sanad iyo 6 bilood kana sanad ayuu gaaray runtii labada wiil marmarka qaar waxaad u malaysaa inaad isa leedahay mis og yihiin waayo sida ay ii wanaajinayaan sida ay ii daryeelayaan marbase iga fikirayaan marmarka qaar waxaa dhacdo inaan anigu xanuunsado markaan xanuunsado sida ay waalidkayga iga kurbooneen ayaa iga kurboonayaan waxaan dareemay labada wiil inay si dhab ah labadaba ii jecel yihiin aniga markaa waxaan aaminsanaa labadaba qalbigayga inay wax ku leeyihiin laakiin markii xaqiiqada aan ka hadlo kan weyn ee gaariga haysta shaqeeya ayuu dareenkayga ku badnaa laakiin labadaba waan wada waday runtii sanadkii koowaad aan noo dhammaaday sanadkii labaad sanadkii saddexaad runtii sanadkii saddexaad markaan gaarnay ayaa wiilkii sanad iyo 6 bilood aan wada soconnay ee wiilkii koowaad ahaa ee jaamacadda dhiganayay ee jaamacaddiisa hadda gabagaba ay tahay ayaa wuxuu igu dhahay anigu runtii shaqo waan helayaa waxaan rabaa in ma aragtay markaan jaamacadda dhammeeyo aniga adiga aan isguursanno waxaan ku dhahay wax walba oo beri dhacayo maanta lagama hadli karo ha la gaaro inaad jaamacadda dhammayso ha la gaaro inaad shaqo hesho waayaha ayuu igu dhahay maalin maalmaha ka mid ah anigoo guriga albaabkiisa sii xirayo ayaan waxaan arkay gaarigii wiilkii xiriirka aan lahayn ee weynaa ee gaariga watay waxaa la saarnaa wiil kale labadaba hore ayaa saarnaayeen albaabka ayaan gees yar ka furay waan fiiriyey waxaan arkay labadii wiil ee aniga xiriirka aan la lahaa inay gaariga isla saaran yihiin albaabkan xiray guriga barandadiisa ayaan fadhiistay waxaan isweydiiyey war labadan wiil ay ku wada wadaajin jiray ay aad u malayso inay isku dabeecada yihiin laba wiiloo saaxiibah is ogaa oo labadoodaba inaad la wada socotid ay og yihiin miya runtii su'aalahaas waxay noqdeen mid aad aniga igu soo noqota maalintii oo dhan waan fikirayay markaas inaan seexdaan rabay laakiin waan seexan waayey kurba ay qabatay inay labadan wiil is og yihiin oo aniga ay rabaan inay shabaqa i geliyaan halka anigu labadooda xiriir aan la lahaa arrintaas waxay noqotay arrin aan aad uga fikiro ugu dambeyntii waxaa i soo wacay midkii weynaa waxaan ku dhahay sidee taa waan fiicanahay markaasaan ku dhahay adaaye waxaad maraysay inta mii aragta ayuu igu dhahay markaasaan ku dhahay maya aniga kuma arkin laakiin walaashay ayaa ii sheegtay adi iyo wiil kale inaa isla socoteen haayuu dhahay walaalkay iyo aniga ayaa isla soconnay walaalkay iga yar waay walaalkay iga yar jaamacaddiisa waa gabagabo wuxuu rabaa in shaqo aan ma aragtay u diyaariyo marka waxaan u waday meel shaqo ah ayaan tusaayey suu shaqo u bilaabo dhowaanna jaamacadda ayuu dhammaynayaa naxdin kale oo hor leh ayaa noloshayda u imaatay waayo labada wiilaan xiriirkooda isla waday oo adaayo markaan arkay aan naxay oo aan isir war labadan wiil ma saaxiibo ayay yihiin oo adiga ayay shabaqa ku soo gelinayeen oo labadaba way is og yihiin laakiin hadda mid ka daran ayaa ii timaaday labada wiil inay walaalo yihiin ayaa ii caddaatay aad baan u murgay ugu dambayntii kii kalaa isoo wacay waan sheekeysannay markaas wuxuu igu dhahay noloshaydii aniga runtii markaan ku bartay noloshaydii wax badan ayaa isbedelay waxaan ahay qof si dhab ah kuu jecel waxaan rabaa noloshaydii in wax badan aan ka bedela noloshaydii dhowaan jaamacad ayaan dhammaynayaa waxaan rabaa inaan shaqeeyo maantay runtii walaalkay ayaa shaqo ii diyaariyey walaalkay aad baan u jeclahay waa walaalkay iga weyn marna waxaan nahay saaxiib runtii waa walaale aad u qiimo badan aabba markuu dhintay guriga lagama dareemin aabba inuu geeriyooday
waa walaal aad u wanaagsan, waa walaal runtii horumarkayga jecel, waa walaal mar walba igu dhiirigeliya in ma aragtay noloshayda aan horumar gaaro. Markaasaan ku dhahay waayahay haddii adiga iyo walaalka aad tihiin dad saaxiibo ah, aniga adiga xiriirkeena ma u sheegtay? Markaasaan waxaan ku dhahay waayahay haddii adiga iyo walaalka aad saaxiib tihiin, aniga inaa xiriir ila leedahay waa u sheegtay walaalka. Markaasuu dhahay maya, runtii uma aanay sheegin in walaalkay aan gabar xiriir la leeyahay, waayo waxaan rabaa walaalkay maalinta adiga aan ku guursanayo oo kaliya inaan walaalkay la wadaago. Hadda waxaan ahay arday wax baranayo, waxaan rabaa inaan shaqaysto. Marka haddaan u sheego waxaa laga yaabaa inuu idhaho walaal waxbarashadaadii iyo noloshaada marka hore soo gabagabay. Marka waxaan rabaa markaan waxbarashada soo gabagabeeyo cabaar aan shaqeeyo inaan u sheego walaal, aan dhaho walaal anigu gabar qiimo badan ayaan aqaanaa, muddo 3 sano iyana waa isla soconnaa. Markaasaan ku dhahay waa arrin wanaagsan, fikirkaagana aad baan kugu taageeray. Ha u sheegin walaalka maantay inaa xiriir leedahay, waayo maanta haddii uu aabbahayo kale kuu soo koriyey gurigii isaga maamulo, waxaa laga yaabaa in ma aragtay uu isdhaho walaalka sidaa adiga la rabtid isaga ma rabo. Markaasaan ku dhahay walaalka isaga ma guursaday? Markaasuu dhahay maya, walaalkay ma uuna guursanin. Walaalkay waa qof horumarkeena mar walba ka fikira. Runtii hooyo dhowr mar ayaa dhahday wiilkayga guurso, waxaan rabaa inaan arka ubadkaaga. Markaasuu dhahay waxaan rabaa marka hore in walaalkay uu wax barto, waxaan rabaa walaalkay inuu garabkayga soo istaago, waxaan rabaa walaalkay inuu isagana guriga mas-uuliyaddiisa iga qaado si aniga gurigayga mas-uuliyaddiisa aan u qaado. Marka walaalkay aniga xataa dhowr mar waan kula dadaarmay, laakiin walaalkay hadda runtii guur diyaaru maaha. Markaasaan ku dhahay ma laga yaabaa inuu gabar hoos xiriir ula leeyahay? Maya ayuu dhahay, waayo dhowr mar ayaan weydiiyey xataa walaal haddaa hadda guursanaynin ma jiraa qof aa xiriir la leedahay? Laakiin walaalkay wuxuu ii sheegay in wax xiriira uusan lahayn, uuna hadda rabin. Marka hore uu rabo inaan aniga shaqeeyo, markaa anigu shaqeeyo oo noloshayda ay noqoto mid nadiif ah, markay noloshayda noqoto mid familka aan ku filanahay, ayuu rabaa walaalkay inuu xiriir suubiyo, kadib ayuu rabaa inuu guursado. Hadday saas tahay maantay haddii walaalka uusan guursanin, adigu markaa shaqayso aa hore ka dhahdo walaal anigu waan guursanayaa, runtii ma qurux badna. Waxaa isku daydaa noloshaydii aniga hadda 3 sano iyo 6 bilood ayaan wada soconnaa, waxaan ku darsanaynaa 2 sano. runtii waqtigaan haysanaa waa da'yarnahay, xiriirkeenana meel qurux badan ayuu noo marayaa. bal ka waran haddii 5 sano iyo 6 bilood anagoo isnaqaano aadna isugu fogaanay, adiguna markaa 2 sano aa shaqaynaysid noloshaada, walaalkaane markaa sanad iyo bar shaqaynay sidoo kale aad dhahdeed walaal guurso, hadda qoyska anigaa ku filan, oo isagoo walaalkaa guursaday adiguna gadaal ka guursato soo ma qurux badna. Markaasuu dhahay runtii waa arrin wanaagsan, anigu mar walba waxaan u ordaaye gabadhan quruxda badan, qiimaha badan, inay isdhaahdo ninkan 3 sano iyo 6 bilood ayaa wada socotaan, waayo uu ku guursan la'yahay. hadduu mustaqbalkaaga iyo noloshaada rabo guur ayuu kuu soo bandhigan lahaa, ayaa tan walaalkii ugu leexday. laakiin hadda fikirkaa ii keentay macaan, waa fikir aad u wanaagsan, anigu waan ku jeclahay. runtii mar walbana waxaan ku hamiyaa inaan adigu ku helo, noloshaada helo, nolol farxada aan ku noolaano. 3 sano iyo 6 bilood ayaan wada soconnaa, hal maalin isma dagaalin, caqabadkaaga ma arag. waxaan ku ahay qof daacada, adiguna waxa ii tahay qof daacada. jacaylkuna wuxuu ku qurux badan yahay labada qof inay daacad isku yihiin, mar walbana si wada jir ah noloshooda iyo mustaqbalkooda ay ugu fikiraan, talada iyo ra'yigan isku darsadaan. macaan waa qaatay taladaada quruxda badan, maskaxdaada iyo fikirkaaga allah kuu barakeeyo. waa yahay macaan, 2 sano kadib ayaan guurkeena ka dhiganaynaa. aniguna waan dadaalayaa in walaalkay aan ma aragta dhaho walaal guurso, nolosheenana aan anigu ma aragta adhow maareeyo, tan qoyskaygana anigu maareeyo. markaasaan ku dhahay lamaanaha waxay ku qurux badan yihiin inay daacad isku noqdaan, mar walbana tale iyo fikir kala qaataan. waan kaaga mahad celinayaa talada iga qaadatay, fikirkayga aa yeeshay, in badanna hadda ka hor aad talooyinkayga qaadatay. markaasuu dhahay haddayba labada qof isjecel yihiin, waxaa wanaagsan in ma aragtay mar walba talooyinkay kala qaataan. jacaylku sidiisaba wuxuu ku qurux badan yahay labada qofood inay war kala maqlaan, talooyinka isku darsadaan. maantay anagoo bannaanka joogno haddaan talooyinka isku darsanno, beritoole markaan isguursanno ilaahay ubadna siiyo, sidaan ubadkayna mustaqbalkooda, nolosheena iyo ma aragta aayaheena haddana waan ka wada tashanaynaa. waxaan noqonaynaa qoys isjecel, ilmo qurux badan oo farxad lagu koriyey, hooyo iyo aabbo ismaqlaaya ay koriyeen. nolosheena way qurux badnaanaysaa, marba marka ka dambaysane nolosheena waxay noqonaysaa jacayl ahaan, qoys ahaan iyo dhaqaal ahaan dad kore ayaan noqonaynaa. markaasaan ku dhahay wiil maskax badanaa tahay, ilaahay maskaxda ha kuu barakeeyo. runtii aad baan ugu farxay in wiilkan walaalkii uunan waxba u sheegaynin, oo halkaa aan ka soo xiray wiilka weynna walaalkii hore wax ugu sheegin. anigu runtii noloshaydii ayaan iska watay, labadii wiil waxaan ogaaday inay walaalo yihiin. anigu go'aankayga wuxuu ahaa in ilaa 5 sano
aan labadan wiil isku wado ugu dambeyntii inaan doorto labada wiil midka mustaqbalkayga iyo noloshayda aan u arko inaan ma aragtay doorto ayaan go'aansaday inkastoo mar walba aan u badnaa dhanka wiilka weyn ee familka haayo dhaqaalaha haysto shaqaysto waayo wiilkan maanta waa wiil maanta shaqo bilaabayo hadduu shaqaysto waxaa laga yaabaa dhaqaalahaas uu helo inuu anigu iloobo in noloshayda markaa anigu meel cidla aan ku soo dhaco laakiin wiilkan waa wiil shaqaysanayo maanta noloshiisa hore u soo waday kanna waa mid noloshiisa hore u bilaabayo mar walba anigu waxaan u badnaa kan weyn laakiin go'aankaygu wuxuu ahaa 5 sano markay noo buuxsanto inaan ogaado midka labadooda iron ugu dambeynna aan ma aragtay ku dhaqaaqo midka aan dooran lahaa anigu markaa kama aanan fikirin war hadday dhacdo labadan wiil mid inaad doorato laakiin labada wiil ay isku sheegaan arrinta in adigu banaan cidla ah aan ku soo dhici doono anigu marna maskaxdayda ma gelinin kan doorto inaan helayo waayo qofka inta badan waxa uu raba ayuu sabirtaa anigu waxaan sabirtay in labadan wiil midka anigu aan doorto aan heli doono kan kalena uu iska bixi doono anigu isma tusin caqabad inay imaan karto inaan anigu sida aan wax u rabo u heli karo oo kaliya ayaan istusay nolosha ayaa halkeeda ka sii watay kolley wax la tiriyo dhammaad ayay leeyihiin labadii wiil si walbaan u qiimeeyey runtii waa laba wiil oo walaalo ah dabeecad ahaan aad isugu dhow anigu waan kala ilaalin jiray runtii mid xaafadeeda imaada labada wiil ma jirin mid walba banaanka ayaan kula kulmi jiray kala waqtina waan kulmi jiray markaan maanta kan balan la leeyahay waxaan ogaan jiray kan kale meesha uu ku maqan yahay ama meesha markaas uu jiro aad baan waxaan u ilaalin jiray labada wiil inay is arkaan ilaa anigu inaan kala doorto ayaan ma aragtay is ilaalin jiray waxay sida ahaato sanadkii 4aad ayaa dhammaaday oo kii weynaay marka labada wiil waxay kala horeeyaan muddo 6 bilood ah kan yar ayaan anagoo soconno 6 bilood ayuu kan noloshayda ku soo biiray waxa dhiman waa sanad iyo 6 bilood mar walba wiilka kan yar wuxuu dhihi jiray noloshaydii wallahi hada noloshayda meel fiican ay maraysaa maanta waxaan awoodaa inaan ani aad isguursanno markaasaan ku dhahay okay walaalka soo ma qurux badna inaan kula taliso in uu guursado wuxuu bilaabay inuu walaalkii dhaho mar walba walaal guurso maalin maalmaha ka mid ah ayaa wiilka weyni soo wacay noloshaydii ka waran haddaan ka fikirno mustaqbalkeeni iyo nolosheeni markaas waxaan ku dhahay noloshaydii waa arrin wanaagsan aad u qurux badan waxaa jirto gabar habarintay dhashay oo runtii 6 bilood kadib la guursan rabo anigu waxaan ku fikiray haddii maanta hadalkaa ila imaan lahayn xataa inaan ku dhaho noloshaydii anigu waxaan rabaa sanadkan haddii uu dhammaado inaan labadeena isguursanno markaasuu dhahay noloshaydii waxaa jeceshahay waa waxaa aniga jeclahay haddaaba go'aan meel dhigatay uu yahay in sanad kadib aa guursato aniguna jacaylkeena wuxuu noqon doonaa 5 sano qurux badan daacad laysku ahaa lis aaminsanaa ugu dambeyn aan ku aqalgalno hadalkaaga mar walba hadal ma soo saaraayo waan qaatay go'aankaaga macaan diyaarna waan u ahay runtii waqtiga wuu isguraayey wuu soo soconayey anigu doorashadeyda aad waxay ugu badatay wiilka weyn dhankiisa wuu dadaalayaa wiilka yar wuxuu ku dadaalayaa inuu ila aqalgalo nolol wadaagno ayuu ku dadaalayaa anigu laakiin waxaan aad ugu soo dhowaanayay wiilka weyn markii bisha 6aad la gaaro wuxuu ugu dhahaye gabadhii habaryar ma la guursanaya haayaan ku dhahay isbuuc dambe waa la guursanayaa xataa waxaan suubiyey inaan wacan ku dhahay noloshaydii ogow in aan ku soo wacaynin maalinta jimcaha ee walaal guurkeedii yahay markaas ugu dhahay maku geenayaa guriga mayaan ku dhahay waayo aniga uma socdi aroos mana jiro waxaan rabaa keliya inaan wax ku kala dabiro ugu dambeyntii maalin jimco ah oo aan iri aroos ayaa jiro xataa waxaan ka qaatay lacag dhar aan ku soo gatay ugu dambeyn arooskii beenta ahaa ee gurigayga aan jiifay ayaan aaday 6 bilood markay gabadhii ay guursatay oo waqtiga uu socday 5 sano ayaa la gaaray ugu dambeyntii wiilka kale wuxuu igu dhahay noloshaydii anigu waad ogtahay sidan waxaan ku soconnaa 5 sano iyo 6 bilood walaalkay dhowr mar ayaan ku dhahay walaal guurso maanta aniga reerka beelo reerka wax badan ayaan anigu u qabtaa noloshaydana waan ku filanahay laakiin walaalkay guurso haye walaal uu leeyahay waxna soo ma wado anigu waxaan rabaa noloshaydii inaan aniga guursado aan isku xirin walaalkay waayo walaalkay shaqadii waan ka qabtay familka maanta aniga beelo aniga gacanta ku haayo isagina wali wuu guursan laayahay mar walba waxaan dhahaa walaal guurso waxa laga yaabaa walaalkay inuu wax kale u qorshaysan yahay inaan isku xiro walaalkay maaha anigu waan ku jeclahay waxaan rabaa inaan xiriirkan soo gabagabeeyo waxaan rabaa mustaqbal iyo nolol inaan kula wadaago waan ku baryayaa noloshaydii waxaan rabaa inaan aqal galno waayahan ku dhahay muddo isbuuca isii waan ka soo fikir markaasuu dhahay noloshaydii adiga 5 sano iyo 6 bilood ayaan wada soconnaa maanta waan ka soo fikiraa miyaa ilaada markaas waxaan ku dhahay markaan ku dhahay waan ka soo fikirayaa waxaan rabaa inaan familkayga la wadaago
inaan ku dhahan rabaa noloshaydii waayahay maalin hebel waqti hebel heerka u imaw ayaan rabaa aad buu u farxay waan kaa filayaa midaas iyo in ka badan waayahay waan ku qancay hadalkaaga adigan kaa warsugayaa ugu dambayntii anigu maalin dhan ayaan fikirayay gabar aan saaxiib ahayn ayaan u wacay waxaan ku dhahay waxaan ku sheegayaa arrin aan kaa qariyay arrintan waxay ahayd sir anigu kaliya ayaa naftayda ku qarsaday laakiin waxaan rabaa sir jacayl inaan kula wadaago sirtaan jacayl muddo 5 sano ayaan qarinayay runtii maanta waad ila yaabi doontaa ma aaminaysaa muddo 5 sano waxaan isku wadaa 2 wiil oo walaalo ah isku aabe isku hooyo ah markaasay saaxiibtay waxay ogtay adigu ma waalan tahay 2 wiil oo saaxiib ah isla wadaa waa maqlay laakiin 2 wiil oo walaalo ah isla dhashay sidee u wadaa markaas waxaan ku dhac aniga kaaga sheekeenayo waxaa jiray markaan gurigaan soo degnay wiil ayaan isbarannay maalin aniga isaga aad baan isku fahanay anigu caado waxa ii ahaa wiilal badan isku wada jir laakiin markaan gurigaan soo guurnay wiilashii waan iska dhaafay wiilkaanaan bartay muddo 6 bilood ah anigoo wiilkaan isnaqaano oo runtii jacaylkeena meel wanaagsan maraayo maalin guriga habarre anagoo ka imid ayaan wadada waxaan ku arkay wiil gaari wato wii istaaji abba ayaan ku dhaweeyay ugu dhahay waan ka diiday ilaa xaafadayda sida aniga u socdo ayuu gaariga u waday mar walba wuxuu yidhahay abbaaya soo kor ugu dambayn xaafadayda ayaan imaanay markaasuu igu dhahay runtii waxaa tahay gabar ka fikiraysa mustaqbalkeeda sharafteedana ilaalinayso haddaa lambarkaaga isiiso isagana waan siiyey markaa waxaan u arkayay qof shaqaysta noloshiisa isku filanta wuuna noqday sidii aan ugu shakisnaa ugu dambayn waan isbarannay si walaaltinimo ah kii horena waan la socdaa ugu dambayn waan isbarannay xiriir oo ii soo bandhigtay 2 wiil waan isku waday in muddo ah markaan wada soconnay 3 sano iyo ayaa maalin waxaan arkay anoo albaabka guriga xiraayo 2 wiil oo gaariga saaxiibkii waa aqaana shirkana uu saaran yahay wiilkii kale ila socday waxaan dhahay wax badan oo rag aad isku shukaansato maanta adiga baxar ku jiro 2 wiil saaxiib ay ahaayeen oo labadaba way og yihiin inaad la socoto markaas anigoo murugaysan ayaa kan yar isoo wacay wuxuu igu dhahay runtii maanta dadaal badan aan muujiyay walaala i kaxeeyay shaqa ayuu ii raadinay waxaan rabaa markaan jaamacadda dhammeey hore inaan ka shaqeeyo oo maaragtay aan aniga adii isguursanno markaas waxaan ku dhahay bal walaalka xiriirkeena u sheegtay mayuu dhahay walaalka xiriirka uma sheegin sababta ugu sheegi waay waxay tahay walaalka isagaana soo koriyey aabahay markuu dhintay guriga isaa mas-uulka ah weli ma uusan guursanin mar walba waxbarashadeena iyo horumarkeenu jecel yahay marka wuxuu dhahay maalinta walaalkay waxbarashada dhammeeyo garabkayga soo istaago oo familka uu ku filnaado ayaa aniguna familkayga markaasaa nolol suubsanaya markaasaa waxaan ku dhahay noloshaydii runtii walaalkaa hadduu ku soo koriyey uu ka fikiraya mustaqbalkaaga adiguna hadda waan guursadaa inaad dhahdo ma qurux badnaa waxaa suubisaa shaqada markaa bilaawdo oo walaalkaa aad dhahdo walaal adigu guurso anigaa reerka ku filan kadib inaad guursato marka 2 sano aan ku darsanna noloshaydii hadda 3 sano iyo 6 bilood ayaan ma aragtay wada soconnaa 2 sano waxba maaha walaalkaa riyadiisa u rumay waa anin wanaagsan u dhahay macaan hadalkaagana waa qaatay kan kalena waxaan weydiiyey maantay in walaashay ku aragtay adoo wadada maraayo qof kale kula socdo walaalkay waayo u dhahayo shaqo ayaan u habeenayay waxaan ogaaday kanna inuun kan u sheegin kanna inuu kan u sheegin labadaba aan kala dili karo ugu dambayntii 4 sano markaan wada soconnay kan weyn kan kalena 4 sano iyo 6 bilood aan wada soconno ayuu maalin wuxuu igu dhahay noloshaydii waxaan rabaa inaan maaragtay goori iyo mustaqbalka la hadlo markaasaan ku dhahay dhawaan aniga waxaan rabaa inaan kaala hadlo gabar walaashay habar dhashay aan la guursanayaa 6 bilood kadib waxaan rabaa aniguna sanad kadib in la i guursado markaasuu dhahay hadaba adigu go'aan gaartay diyaar ayaan u ahay waayo hadda walaalkii ayaa shaqeeyo nolosha guriga ku filan inaa adigu kuu soo jeestaa rabaa farxad iyo nolol wadaagno waayaha ayuu igu dhahay taladaada waan qaatay waan sugayaa sanadkan ugu dambayntii wuxuu waqtiga socdo ugu dambayn waxaa la gaaray 5 sano ayaa kan weyn la socdaa 6 bilood 5 sano iyo 6 biloodna ka yaraa la socdaa aniga runtii waxaan rabaa 2 wiil inaan kala doorto inkastoo qalbigayga kan weyn uu ku jiro oo xaggiisa aan u badanahay laakiin 2 wiil kale ma dhacaan waxaan rabaa talo iyo fikir inaa isiiso markaasay gabadha saaxiibtay waxay wadaad abbaay horta arrin adag ayaa ii sheegaysaa waayo 2 wiil oo walaalo ah inaa isla shukaansato xiriir la yeelato wallahi waa wax aad u adag cabsi badan waayo 2 wiilaba saaxiib ahaaba shaki imaan karaa 2 wiil oo walaalo ah inaad mid doorato okay kaba soo qaad sida aad jeceshahay mid inaad doorato aad guursato dee walaalkii xaafadaada wuu imaanayaa soo ceeb maaha soo xishood maaha wallahi aniga tan waan suubiyey kan doortaana anigu noloshayda la wadaagi doona kan kale isaa xishoon doona aniga ma xishoonay maanta walaalkii i qabo isaga inuu iga xishooda loo baahan yahay niyo arintaas markii ay ku soo doontaan ama ay ceeb ka dhacda wallahi waxaan nahay wax ceeb ka dhacayo uma maleynayo waay labadaba waxaan ogahay inay si waali i jecel yihiin mid aniga iga leexanayo inuu jirane aniga uma maleynayo laakiin anigu go'aanka waa gaaray adiga rabaa inaad tala i siiso gabadha saaxiibtay waxay ku dhahday wallahi abaaya arintaada aad ay u adag tahay laakiin waxaan ku dhihi lahaa hadaaba qof dooranaysid kan weyn dooro oo hadda qalbigaagan uu u badan yahay sababtan ku dhahay waxay tahay kan weyn
markaad doorato oo kan weyn uu ku soo doonto kan yar wuu xishoon doonaa walaalkii ka weyn gabar uu soo doontay anigaa jeclaaya xiriira la lahaa ma dhihi karo laakiin haddaad dooratid kan yar waxaa laga yaabaa walaalkii ka weyn inuu dhaho aboowe anigaa gabadha xiriir la lahaa wuuna suubin karaa marka aniga waxaan ku dhihi lahaa kan weyn dooro si kan yar uu xishoodo haddana abaal badan uu ku leeyaho isagaa soo koriyo aabba uu ahaa walaalkiiyo intaasoo sano aana guursanin maanta gabadhuu guursanayo inuu ka hadlo ma jeclaysan doono anigu tala ahaan waxaan kuu siinayaa inaad ma aragtay kan weyn doorato go'aankii gabadha saaxiibtay ayaan qaatay waxaan go'aansaday inaan doorto kan ma aragtay weyn ugu dambeyntii habeen ayaan wacay waxaan ku dhahay noloshaydii waxaa jira wiil adeerkii dhalay oo in muddo ah idaba socday oo idhahayaan inaan ku guursadaan rabaa ugu dambeyntii wiilkii wuxuu rabaa inuu imaado waayo anigu waan diiday waan u sheegay waxaan ku dhahay anigu wiilaan jeclahay igaraale noqo adigu walaalkiyaa tahay laakiin hadda wuxuu ii sheegay inuu imaado uu rabo familka inuu iga soo doonto marka waxaa imaan doonto caqabad inay familkay dhahaan far duco iyo far habaar kolley habaar qof dooranayo male waad ogtahay waxaan rabaa in beri galabba cidda iga soo doonato oo reerkane kedis ah ugu dhigto si ninkaa markuu imaanayaba anigoo isoo doonatay ama arooskeena uu dhaco markaasuu dhaha waxaan kaa ballan qaadayaa beri galabba inaan reerka u imaado hadday reerka isiiyaan oo isku fahanane waxaan diyaar u ahay 3 maalin kadib inuu arooskeena dhaco aad baan ugu farxay waayo wax walba inay soo gabagaboobaan ayaan rabaa aniga isku markaan telefoonka dambiyey hooyadii ayaan la wadaagay hooya aabba ayaa la wadaagtay ugu dambeyntii sidii la ii soo doontay reerkii wada fadhiisteen waxay dhaheen gabadhaanaan soo doonanay gabadhaan iyo wiilkaan muddo 5 sano isjeclaayeen ugu dambeyntii waxay ku heshiiyeen inay reerihii u imaadaan diyaar waxaan u nahay gabadha inaana siisaan gabadha inaan guursanno ayaan diyaar u nahay sooridii gabadha yaradii gabadha waan wadnaa diyaar ayay naga tahay waxaan rabnaa in isbuucan aan soo gabagabeeno guurkeenii wiilkii gabadhan waa isku soo fahmeen bal idinkana hadla runtii reerkeenan waxay dhaheen anigu diyaara u nahay haddayba gabadheena wadato gabadheena raalli ka tahay diyaar ayaan u nahay sidii ayaa wax walba meeshii loogu heshiiyey arooskii lagu ballamay in maalinta jimcaha uu dhaco kadib wax walba way isku dhammaadeen aniga isagii waa ku heshiinay meherkeygii wax walba waa ku heshiinay ugu dambeyntii anaga maalinta ku xigtaba waxaan bilaabnay qabanqaabadii guurkeenii ugu dambeyn waxay soo wacay wiilkii yaraa wuxuu igu dhahay runtii war marna aan ku farxay marna murug igu abuuray ayaan gurigeena ka dhex maqlay waxaan maqlay shalay walaalkay inuu gabar doontay aad baan ugu farxay walaalihii ay ii sheegeen walaal gabar uu doontay gabar deriska uu doontay laakiin tilmaamta la ii siiyey waa gurigaaga bal noloshaydii waxaa iga warantaa ma walaalkaya gabar adiga kula dhalatay la socday mar gabadha la soo doontay ee gurigeena laga soo doontay ee walaalkay maalinta jimcaha ah arooskan degdega ah bal iga waran markaasaa waxaan ku dhahay runtii waxaan u malaynayay in walaalkaa wax walba kuu sheegi doono gabar heblaayaan bartay magaceed la dhaho aan u malaynayay laakiin walaalkaa inuu gabar doontay guur ku heshiiyeen reerkii ay kuu sheegeen waa arrin wanaagsan anigu marka si fiican ii dhagayso runtii waxaa jirto gabar markaan nahay in rag badan aan shukaansanno waxaa jiray anigu xaafaddaa markaan ka soo goorayay dhalinyaro badan aan shukaansanayay xaafaddaa markaan imid anigoo ku cusub aniga adaa isbarannay ugu dambeyntii waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah aniga adoo 6 bilood wada soconno inaan wiil kale isbarannay anigu ma aanan ogeyn in adiga wiilkaa isla dhalateen runtii 3 sano mar aan wada soconno ani iyo wiilka cusub adiguna markaas 3 sano iyo 6 bilood aan wada soconnaa maalin aad dhehaysa walaalkaya shaqo ii doonaya isla soconnay ayaa anigu idin arkay waa maalintaan ogaaday inaad labadiina isla dhalateen xilligaas anigu kanna waan la socday adiguna waan kula socday 3 sano ayaan labadiina niskii waday waxaan awoodi waayay in labadiina mid aan doorto waxaan isir ugu dambeyn mid baa hari doone isku wad runtii waxaan wadaba adiguna jacaylka intaad ii soo bandhigatay ayuu isagana ii soo bandhigtay runtii marba markay ka dambayso anigu labadiina horta qalbigayga way ku jirteen laakiin marba markay ka dambayso doorashadeedii waxay u badnayd walaalka ugu dambeyntii waxaan ku heshiinay guur ani iyo walaalkaani waan isguursanaynaa xilligan waxay ka dambeeyane dee anigu labadeena waxaan nahay 2 qof oo ixtiraam ka dhaxeeyo walaalka ayaan dhowaan xaaskiisa noqonayaa waxaan rabaa wax walba oo aniga adeena soo dhaxmaray inaan iska ilowdo wixii hadda ka dambeeyane dee ilmahan dhalaya adeer ayaa u tahay marka waxaan jeclaystay in wax walba oo qalad aan hore u lahaa ay iska kee ilowdo markaasoo dhahay maanta ay meeshaan ka ogaanayo inaan 3 sano aniga walaalkay hal gabadh isla shukaansanaynay
waxaa fiicneed 3 sano ka hor in anigu aan geeriyoodo runtii anigu daacad ayaan ku ahaa aadna waan ku aaminay kalsooni fiicanna waan ku siiyey waligay isma aana dhihin iska dayay walaalka ayay kula wadaay nin kale ayay kula wadaa xataa isma dhihin waxaan qaadan jiray talooyinkaaga iyo ra'yigaaga si aad waqtiga u dheeraysato ayaad igu tiri soo maaha 2 sano kale igu dar waan la yaabanaa gabar 5 sano iyo 6 bilood xiriir jacayl adigoo guur u soo bandhigtay gadaal u dhigayso walaalka dartiisa laakiin anigu daacadnimadayda ayaan ku socday hadiiba go'aankaaga oo sidaan yahay runtii waad ii dishay anigoo nool qalad weynna waad iga gashay walaalkii ayaad igu kor shukaansatay laakiin dib ma lahan tan waa adduunyo xanuun weyn ayaa i dareensiisay ma ogi xanuunkan inaan la noolaanayo iyo inaan la dhimanayo si walba ha ahaato anigu waxaan kuu ballan qaadayaa inaan caqabad ku noqon doonin guurka adiga iyo walaalkay ilaahay waxaan kaaga baryayaa nolol wanaagsan inaan ku noolaato laakiin waxaad ogaataa sidaan u iloobi la ahay xiriirkii aniga aan kula lahaa iyo sida aad igu qiyaantay walaalkay adiguna noloshaada inaadan u iloobi doonin noqon doontane nambar kugu taagan markaasaan ku dhahay adigu miya habaaraysaa waayo aniga adiga 2 qof oo xiriir leh aan nahay anigu xaq waxay igu yeelanaysaa markaad xaaskaaga noqdo doorashadeeda aniga leh anigu walaalka ka weyn ayaan doortay waayo labadiina shalay isaga ayaa mas'uul ka ahaa maantana aniga isaga mas'uul iga noqon kara qof kale ma ana dooranin muhiim inaan ku faraxda ay ahayd waxa aad sheegaysid ee bari waa arki doontaa aad leedahay markaan arko ayaan ka jawaabi doonaa waayo hoo dhahay khayran ku rajeenaya xilligaas oo ila hadlaayay aad buu u oynaayay xilligaas waxba jixin uma ana muujinin nolosheedii iska watay gurigeena diyaarsanay farxadeeni anigu wax murugay ma hayso ugu dambeyntii waxa la gaaray subaxii jimcaha sidii waxa ku dhacay meherkeeni waayo wax walba maalintii kow soo doonanaya ayuu reerka u keenaba xafladeeni kaliya la sugaayay arooskeeni ayaa hotel ka dhacay alxamdulillah guri gooni ayaan degnay marka xaafadda anaga aan degnayn iyo xaafadooda way isku dhawaayeen laakiin anagu xaafad kale ayaan degnaba qorshahaasna aniga watay inaan ka fogaana ayaan rabay runtii waxa sida ahaataba arooskii ayaa dhacay runtii maalintii wuxuu i baray familkiisa oo ogtahay arooska markuu dhaco waxa dhaco in wiilka familkiisa iyo reerka familkooda dhammaan sawir isla galaan runtii waxa dhacday in walaalkii uu i baray dhammaan walaalihii la dhashay hooyadii inuu i baray runtii wajigiisa markaan fiiriyay waxa ka muuqatay kurba aad u weyn laakiin wuu qarsanayay laakiin waan fahmayay waxba anigu dareen uma ana muujinin nolosheeda iska watay waan aqal galnay 7 markaan ka soo baxnay inta badan waxa ku casuumay amareerkaaga amareerka wiilka labada reer wayna casuumeen okay wuxuu yiri dib ma lahan maalinta khamiista waxaan aadayaa reerkaaga maalinta jimcaha oo familkiiga dhammaan guriga ay joogaan kuwa shaqeynaya xataa guriga joogaan maalintaas ayaan kugu casuumayaa waayaha ayaan ku dhahay maalinta khamiista reerkayga oo tagnay meeshaan lagu casuumay habeenkii gurigeena u soo hooyanay subaxina waa baxnay xaafadda reerkaan tagnay runtii wiilka ma uusan joogin dhammaan walaalihii waa lay baray wuxuu dhahay walaalkaygu maqan yahay hool ayuu yeeshay shalay markaan u sheegay ayuu dhahay maya ani bari ma joogi hool adagaan leeyahay marka la isbaran doontaan dib ma lahan waayaha ayaan ku dhahay waxa soo wacay ninkaygi wuxuu igu dhahay noloshaydii qadada ma imaanay maantay waayo qadada gurigu soo doonay jiray wuxuu dhahay ma imaanay walaalo ayaa lagu soo booday isbitaal ayaa loola orday aniga isbitaalka ayaan u ordaya sida ogow waayaha ayaan ku dhahay ugu dambeyntii markaas xogaa yar walwal waxaan ku dhahay maxaa ku dhacay bal talow ma sunu cabay sidii wax u jiraan ugu dambeyntii markuu isbitaalka tagay cabaar aan isdhahay ugu joogay ayaan wacay waxaan ku dhahay walaal maxaa ku dhacay markaas uu ku dhahay walaalkay ma aqaano wallaahi waxa la leeyahay maskaxda ayaa dhiig ku furmay xaaladiisana aad ayay halis u tahay markaas waxaan ku dhahay nolosheedii soo doon aniga isbitaalka nimaado waayo anigu familka ayaan ka mid ahay markaasuu dhahay waayahay qofaan kuu soo diraya anigu isbitaalka ma soo tagi kari walaalkay xaaladiisa aad loogu deerinaya maskaxda ayaa dhiig ugu furma ayaa la leeyahay sidii ayuu gaari igu soo diray isbitaalka ayaan tagay dhammaan familka murug ayaa ka muuqato runtii anigu markaas waa la murugooday familka waayo xanuun daran ayaan dareemayay waayo wiilkan masun ayuu cabay maxaa ku dhacay adiga miyaa dhibkan sabab u ah ayaa anigu ku fikirayay ugu dambeyntii habeenkii ayaa anaga ka soo tagay isbitaalka laakiin isaga isbitaalka ayuu seexanayay oo wuxuu yiri walaalkay kama soo tagayay salaad subaxi markaan tukaday ayaan maagay inaan waco laakiin telefoonkiisa mashquul ayuu ahaa ninkayga dhowr mar ayaan wacay ugu dambeyn cod ayaan u duubay waxaan ku dhahay nolosheedii aad baan kuu soo wacayaa mana qabanaysid wax dhibi ma jiro walaal siduu yahay isagoo oynayo ayuu codiisoo duubay wuxuu yiri allahu naxariisto walaal 10 saac iyo 20 daqiiqo ayaa nafta ka baxday walaalkay codkiisana oohin ayaa ka muuqatay aad baan u murugooday isku markii
anigu waan dhaqaaqay oo reerkii gurigooda ayaan tagay reerkii oo oynayo walaalihii hooyadii aad u oynayo waxaa la yidhi reerkii qof imaan karo isbitaalka ma leh guriga jooga ugu dambayntii adigu 4 saac subaxnimo ayaa meydkii waxaa la keenay guriga aad bay u barooranayaan reerka murugada ka muuqato reer wiilkoodii uu ka dhintay oo weli xanuun badan hore uusan u haynin har mar lagu soo booday oo yiri dhiiga maskaxda ugu furmay runtii reerka aad bay u wada murugeysnaayeen ugu dambayntii salaada duhur ayaa la yiri janaasada mashaajka loogu tukanayaa waa la qaadayaa runtii reerka murug weyn ayaa soo wajahday anigu mar waan walwalaa marna waan islowsiyaa mar waxaan isdaa waqtigiisa ayuu ku dhintay adigu shaqo kuma lihid marmarka qaarna waxaan isdhahayay wiilkaan murugadii iyo xanuunkii mayo sidaan ku noqdo waayo waxaan ogaa heerka uu ijeclaa xaqiiqdii waan ogaa runtii reerkaas murugo aad u weyn ayaa soo wajahday adigu waxay nolosha socotay todobadiisii ayaa la laabay oo tacsidiisii ayaa dhamaatay nolosha ayaa iska watay kolley qof hadduu dhinto xaqiiq waxaa reerkaas inay murugayaan laakiin anigu ninkayga wuu iloobi waayo walaalkiisa mar walba uu ka sheekeynayaa mar walba uu ka sheekeyn jiray jimco walba dhammaan familka waxay aadi jireen qabuuraha anigu waan ku qasbanahay mar inaan raaco aad bay ii dhibaysay raacidda aan raacayo waayo xanuun aan dareemayay marmarka qaar waxaan isdhahayay markaan arko reerka qabriga saas ugu wareegsanayaan ayaan waxaan isleeyahay adi ama ka dambaysaa murugada ka muuqato kolley waa taqaanaa qabri markaa tagto reer wiilkooda ka dhintay qabriga ay ku dul wareegtaan ay u duceynayaan murugada ka muuqanayso runtii adigu maruu duugan yahay bil ayaa waxaan anigu isku arkay arrin noloshayda oo dhan bedeshay oo ilaa maanta ay haysato waxaan isku arkay habeenkii haddaan aniga ninkayga isla seexanno oo si caadi aan u seexanno waxba dhibaato ma arko laakiin habeenkii aniga iyo ninkayga aan jamiic suubinno isku tagno labada qof markay jamiic suubiyaan oo ugu dambayntii way seexdaan soo ma anigu markaan maago inaan seexdo wiilkii horteeda soo istaagay ee dhintay ee walaalkii ahaa ee anigu xiriirka aan la suubiyey ee inkiray ee aan gooyeen qiyaanay ayaa horteeda soo istaagay wali caadi uu kicinaya wuxuu leeyahay way garaacaya garabka iga garaacaya dhanka u jiifo garabka ayuu iga taabanaya haddaan fiiriyo qof caadi ah oo wejigii ifaayo ayaa horteeda soo istaagayo caadi igula hadlaya wuxuu leeyahay adiguna walaalkay iga weyn ayaa nolol la qaybsanaysaa oo farxad la wadaagaysaa sariir la jiifta nolosheedin qurux badan tahay aniguna adiga dartaa ayaan iilka ugu jiraa oo inaan anigu dunidan ka tago quruxda badan ee nolosha iyo hamiga aan ku haminayay adigu sababteeda leedahay inaan qabriga garo kadibna way iga dhaqaaqaa okay adigu qof shalay xiriir la lahayd oo walaalkii ka raacday ugu dambeyn maskaxda dhiig ugu furmay ay dhintay oo ku yimid ku dhahay adiguna farxad iyo nolol walaalkay la qaybsanaysaa aniguna adigu dartaa ayaan qabriga ugu jiraa hurdamiyaa ku taalo dhidida iga imaanaya guriga oo mukayf ku jiro ayaa dhidid iga imaanaya ninkayga fadhigayga markuu arkuu soo kacay maxaa kugu dhacay waxaan leeyahay waa xanuunsanahay caloosha ayaa laga hayaa isaga wuxuu leeyahay macaan ama uur leedahay intee uur ka jiraa murugo adduunya i hayso nin dhintay ayaa horteeda imaanaya habeenkii runtii nolosha waxay ugu noqotay mid murugo ah uma sheegi karo oo ma dhihi karo war walaalka ayaa aniga ii imaanaya hore aniga walaalka xiriir u lahayn ma dhihi karo runtii maalintaas oo dhan maalinay maaha waan murugaa heer waxaan gaaray kulanka ninkayga aan iska ilaaliyo habeen walba oo ninkayga soo damco waxaan isku dayayaa inaan ma aragtay xanuun iyo wax un sheegto laakiin waa ku qasban tahay caawa markaa ninkaaga ka leexato habeen dambe ka leexato isbuucii haddaa dhahda xataa 4 habeenaan ka leexanaya waa ku qasban tahay habeenkii markii aan aniga ninkayga isku tagno oo ninkayga uu seexdo aniguna aan maago inaan seexdo xilligaana waa xilliga hurdada ay ugu macdahay markaan seexdo indhahayga isgalaan garabka ayaa laga taabanayaa markaan soo fiiriyo waxa uu leeyahay hal eray waxa uu leeyahay mar walba uu yimaado waxa uu leeyahay adiguna walaalkay ayaa farxad iyo nolol la wadaagaysaa aniguna adigu dartaa ayaan qabriga ugu jiraa dunidan quruxda badan adigu dartaa ayaan ugu tagay way ka dhaqaaqaya intaa markuu idho way ka dhaqaaqaya wajigiisa wuu ifaaya gacmihiisa wuu ifaaya laakiin sidiisa waa hal dhar oo cad ah ayuu habeen walbana wataa aad baan u fikiray waan murgay nolol iima aha ninkaygii habeen walba aan u tago anigu farxad ma helo habeenkaan u tago waa habeen noloshaydiiba ay galayso nolol adag oo aad aan u xanuunsanayo ninkayga waxaan ku dhahay noloshaydii anigu runtii habeen walba markaa aniga adi isku tagno
anigu wax un baa istuso maxaa iska tuso wallahi ma aqaan wax si toos ah uma sheegi karo oo waxaan leeyahay ninkeyga waxba arkaa markaas la yiri quraana lagu saaraya ninkeyga lacag u haysta quraana la saaray mar reerkii gurigiisa lagu saaray mar reerkeyga lagu saaray macallina la igeeya dugsi wax walba la soobiyay laakiin aniga iga ma harayo habeenka ninkeyga u tago waa kana uu taagan yahay kicinaya daaw caadi uu kicinaya soo kac adigu walaalkii ayaa farxad la qaybsanaysa noloshan quruxda badan ku jirta aniguna adigu darta ayaan qabriga ugu jiraa dunidan quruxda badan adigu darta ayaan ugu tagay way ga dhaqaaqaya gacmiis way ifaayaan lugihiisa way ifaayaan wajigiisa way ifaaya inta kale dharaxadu ka wata caadiyan u arkaya hadalkiisa caadi u maqlaa uu tagaya nolosheedii waxay noqotay mid aad u murugo badan ugu dambeyntii waxaan ku dhahay nolosheedii aniga gurigan kuma noolaan karo waayo way ugu dhahay gurigan waan ka guureynaa gurigan ka guurnay guri awal Finland degnay apartment-yaan degnay noloshii waxba iskama bedesho haddaan rabo wiilkaa geeriyooday inuu iga maqnaado waa in aan ninkeyga isku tagin habeenka ani iyo ninkeyga isku tagno uu taagan yahay halka erana uu leeyahay doodku ay aadinaya runtii noloshii wanu adkeysan waaye adigoo 2 sano ayaan magaalada Muqdisho joognay ugu dambeyntii waxaan ku dhahay nolosheedii waxaan rabaa inaan magaaladan dhan isaga tagno markaas ugu dhahay waa yahay ganacsi weyn waxaan ku leeyahay Puntland bal ka waran inaan Puntland aadno diyaar ayaan u ahaa marka inta maxaan isla war magaaladii uu ku dhinto waaye bal isaga tag magaaladan sidii ayaan waayahay ku dhahay ugu dambeyntii sidii aan ku baxnay waxaan tagnay Puntland habeenkii ugu horeeyay ee aan Puntland tagnay tanini iyo xaaskiisa ee 2 sano isqaba aan wali uba tagin ninkii dadaal uu muujinay xaaskaaga u tag waa xalaashaada si u bada u heshaan habeenkii koowaadba yani ninkeyga waqti aan wada qaadanay ninkeyga seexdo aniguna ankaas u dhaco markii hurdada meel macaan ii marayso waa kana waxba isma bedelin garabkii uga taabtaa eraygu yiraahdo adigu walaalkii ayaa farxad la qaybsanaysaa nolol qurux badan ku jirtaa laakiin anigu dartaa ayaan qabri u galay eelkaas ugu jiraa dunidan quruxda badan adigu dartaa ayaan ugu tagay doodku ii aadiya waxba isma bedelin runtii nolosha way igu cadimatay ninkeyga waxaan ku dhahaa nolosheedii anigu Muqdisho ka soo tagay halkaan imid noloshan way ag taagan tahay sababta ugu weyn ee aniga mar walba aan ugu fogaanayo aniga adiga habeen walba waan ku baahanahay ninkeyga laakiin sababtan kaaga tagay waxay tahay habeenkan isku tagno anigu wax un baa iska tusaayo waa murgaaya habeenkaas rafaad iyo dhibaato ayaan ku jiraa quraana la saaray wax walba liigu suubi meel aan la igeen xataa dhakhtar nafsiin waa la igey si walba su'aal la ii weydii anigu marka dhakhtarka cilmi nafsiga markii su'aale uu ii weydiyo sida saxda ma ugu jawaabi karaa su'aasha ma dhihi karaa ninka anigu i qabo walaalkii ayaan hore xiriir u lahayn kanaan soo raacay kaana dhiiga maskaxda ugu furmay habeen walba anigu ninkeyga aan u tago uu ii yimaadaa oo intaasoo ii dhahaa ma dhihi karaa jawaabtu waa maya ma dhihi waan kurbooday waan silcay ani ninkeygii waan isdhibsannay waayo habeenkii uu aniga rabo aan ka ogolaado dhibaato yar faada mara nin dhintay ayay hor imaanayo sanad 3 sano ayay nolosheedu sidaa tahay oo nolosheedii cadibmatay ilaahay wax u wadaa ima siin waayo habeenkii markaa ninkeyga waqti la qaataba kurba iyo silac ayaan galaa 3 sano iyo 2 bilood ayaan isqabnaa wax u wadaa ilaahay ima siin qof bid aadan ah oo maanta hiigsi number 1 aan ahayn nolosheyda lama aan wadaagin hooyaday familkeyga lama aan wadaagin nolosheyga ugu adkaatay nolosheyaan ku silcay ku cadaabmay waayo habeen walba oo waqti qaato murugo ayaa iga dambayso oo wad aan dhalana hasheegin dhan walbaan wax ka fiiriyay xaqiiq ma sheegi karo oo ma awoodo inaan dhaho walaalka ana shalay xiriir lahayn walaalka ayaan qiyaanay adigan ku doortay waan awoodi kari laahay noloshaana waan ku noolaan laahay silac iyo rafaad ayaan ku jiraa waxaan soo biiwan garan waay ugu dambeyn waxaan ku aansaday inaan qasadayda idinka nila soo wadaago waan cadibanahay waan rafaadsanahay runtii waxaan go'aansaday inaa idinku taladiina ay fikirkiina isiisaan adduunyo 3 sano oo silac rafaad ayaan maray hadaan ogaan lahaa dhibaatada inaan ku jiraayo nin dhintay inuu habeen walba oo ninkeyga farxad markaan la qaato ii imaanay hadaan ogaan lahaa runtii waxaa ma soo bin lahayn nolosha sideedaba bilowga waxa aad soo binaysid way kula qurux badan yahay way kula wanaagsan yahay laakiin gadaal ayaa hoog iyo halaag ku sugnaanaysa maantay anigu rafaad miya iyar marmarka qaar masqusha anigoo ku jiro ayaa niyadeeda iga soo dhacaysa habeenkii sida la ii kiciyo heer masqusha aan ka baqo ayaan marayaa runtii habeenkii waxaan marayaa inaan nal ka daarto nal daaro
demi waa taagan yahay waa imaana hadda ninkayga u tago noloshay igu adkaatay noloshiyan ku cadibmay waxaan suubiyo waan garan waayay waxaan go'aansaday inaan tala idin weydiisto waayo maanta 3 sano la iqabaa iyo wax u wada ma haysto nolol cadiban ayaan ku noolahay nolol qalqala ayaan ku noolahay silac ayaan ku noolahay inkaygina wax waa u sheegi waayay waan awoodi waayay inaan u sheego waxaan go'aansaday taladiina iyo fikirkiina inaan qaato adduunyo silaceedii ayaan 3 sano ku noolahay waxaan shalay suubiyey ayaa maanta dhibaatadeeda haysataa shalay waan yareystay laakiin maanta nolosha igu adag bal tala iyo fikir isiya runtii waa qiso aad u xanuun badan waa qiso runtii dhan walba aad ka fiiriso gabadha nolosheeda iyada ee qaladay inta badan waxa ay suubinayaan wallahi kama fiirsadaan qof meeluu aadaya maxaa caqabad kala kulmayso qof uu xumeynaya maxaa dhibe kaaga imaanayo bal gabadhan fiiri laba wiil oo walaalo ah ayay muddo midna 5 sano la socotay midna 5 sano iyo 6 bilood la socotay wali 5 sano iyo 6 bilood kee la socotay ma ayna dooranin kii weynaay ayaa dooratay kii yara ma ayna dooran xiriir la soo bisay 3 sano waxay ogaatay in labadan wiil ay walaaliyiin maxaa laga rabay ugu dambeyn xataa oo yaraan xataa inay go'aansato xilliga inay mid jarto 2 sano kadib waxay soo dhihi karaa walaal kadib ay isbarteena imaan karta xataa laakiin waxay soo bisay 5 sano iyo 6 bilood wiilkii yaraa ee la socotay kii weynaana 5 sano ee la socoto ayay ugu dambeyn waxay soo bisay inay kii weynaa dhahday wiil adeerkay dhalay aan rabo inuu imaado reerka iga soo doonte si degdeg ah iga soo doono ee waa ogtahay gabadha jeceshahay muddo 5 sano xiriir ala lahayd ku dhaxdo waa la isoo doonanaya sa labadeena isku helno adaan ku jeclahay si degdeg ah ku imo wuxuu suubiyay lacagna uu haystay markii uu reer ka soo doontay markay ogolaadeen markaas uu yaradii isooridii meesha dhigay jimcaana la yiri arooska dhacayo ugu dambeyn wiilkii markuu ogaadane ay tirani walaalka ayaan doortay igaraale noqo walaalkii waxba lama uusan wadaagin maskaxdiisii ka shaqeysay wiilkii yaraa walaalkii farxada uu muujiyay guurka walaalkiisa kama uusan qasin waayo sababtay shalay iyadii saaxiibtay markay fikirayeen ay u dhahayn haddii aad kan yar dooratid kan weyn waxa laga yaabaa walaalkii inuu dhaw gabadhaana ila socotay laakiin kan yar waxa celinayo shalay walaalkiis ma uusan guursanin intaas oo sano walaalkii yaa soo koriyay maanta mustaqbalkiisa noloshiisa dhisaayo wuxuu ku sabrayaa walaalkii intuu u suubiyo wuuna aamusaya wuuna yiri markii wuxuu yiri waayahay dhib ma lahan laakiin eray waxa jiray oo markaa uu ku hadlo yiri waligeeda waa ka shalayn doontaa maxaa dhacay marka wiilkan maskaxda dhiig ugu furmay sidoo isku ciilay dadkan farxad u muujinay wuu geeriyooday laakiin maxaa u bilowday ciqaab adduunyo u bilaabatay bal ka waran habeenkii ninkeeda markay waqti qaataan ay seexato ayuu u imaanaya uu leeyahay erayga bal fiiri adigu walaalkii ayaa la raaxaysanaysaa nolol qurux badan kula jirta laakiin anigu dartaa ayaan qabri u galo dunidan adigu dartaa ayaan ugu tagay wal ilaahay kugu dhaariyo qof aad xumaysay walaalkiina garabkaaga jiifo hadduu ku yimid qof dhintay ka waran oo intaa ku dhaho noloshay ku noolaanaysaa silac rafaad quraan la saaray muqdisho ka tagtay buntland tagtay waxba u qabsami weysay si walba waa qof nafsi ah gashay haddana adduunku maxaa ugu xun markaa qof dhibaatayso oo qofka uu nool yahay war cafisa weydiisanaysa qof dhintay sidee intee u maraysaa gabadhii noloshiya ku xumaatay maanta 3 sano iyo la qabaa nolol ma haysato oo farxad ninkeeda kulama noolo nin lacag haystaa qabo laakiin nolol kulama noolo habeen walba oo ninkeeda u tagto maxaa kaga dambeeyo wiilkii geeriyooday inuu u imaanayo si walba quraan loo saaray wax walba ay soo bisay uu imaanaya erayadaas u dhahaya uu ka tagaya maxaa u dheer 3 sano oo la qabo in wax uura ay yeelanin maxaa dareemaysaa in adduunyada ciqaab ay ku marayso adduunyada ay ku nooshahay inay ciqaab ku marayso waxay tiri meel walba oo haddii dhakhtar la ii geeyo su'aalo i weydiiyo kama jawaabi karo ma dhihi karo war ninkan i qabo walaalkii ayaa ma aragtay anigu isla waday wuuna geeriyo habeen walba markaan ninkayga la jiifto ayuu ii yimaadaa habeen walba markii ninkayga ani isaga si qaasa u kulanno ayuu ii yimaadaa haddaan si caado u seexanno ima imaanayo nolosheedii dhan qalqalay ku jirtaa ma dhihi kartaa oo dadkii ma la wadaagi kartaa mayay noqotay waxay noqotay in 3 sano iyo bilal rafaad iyo dhibaato ay ku jirto wax walba ay soo bisay si walba quraan loo saarane imtixaan adduunyo haysto ay noqotay shalay ma ka fiirsatay jawaabtu waa maya waxay tiri iska wad kana dooratay kana kuron maxaa kaaga imaan kara maxaa dhici kara isma ayna weydiinin ugu dambeyntii qisadii nala soo wadaagtay waxay tiri waxaan rabaa waxay tiri adduunyo ayaa igu soo yaraatay adduunyada ayaa igu soo yaraatay haddaan ogaan lahaa saa inay qabsanayso hal maalin xataa ma soo beeyeen way dhacday
bida aadan waa la wadaagi la ahay ugu dambeyn idinkaa jeclaysta inaan ila wadaago waxaan rabaa talo iyo fikir inaa isiisaan bal talo maxay noqon doontaa talada aan siino wallahi intaan qisadan diyaarinayay aad baan ula yaabay inta badan qofka markay qisada ila soo wadaaga aan dhageysto ayaan talo siiya laakiin qisadan wallahi wax talo ah ma siinin waxaan jeclaystay muuqaalkan marka talada aan u arkay intaan qisada diyaarinayay dhibaatada ay geysatay ee dhibaatada haysato markaan fiiriyay in anigu talada aan siiyo aan u arkay idinkuna qof walba talada iyo fikirka qaybta qoraalka ku siiyo anigu marka shakhsiyan waxaan u arkay tala ahaan inaan u siiyo runtii wiilka waa uu dhintay allah u naxariisto wiilkaad waa dulmisay waad xumaysay dhaawacaan iyo xanuunkaane allah ka sukow xanuunkaane sababteeda adigaa lahaa waa xaqiiq anigu sheekada qorayne waan fahmayaa dhammaan qof walba muuqaalkan daawadana wuu fahmayaa adiguna waad is ogtahay kolley anigu marka adduunyadan wax walba way ka dhacaan wax walbana waa la arkaa laakiin qofka bini'aadanka waxaa roon waxa uu suubiyey inuu runta ka sheego shalay beenaa qarisay laba wiila isku haysay muddo 5 sano ah isku waday ugu dambeyn mid dooratay kan kale ilaahu kugu day way qof lama wadaagin walaalkii haduu dhigay walaal gabadhan anay i waday in labadaba aaweysa laga yaabi lahaa culayska adigu qabsan lahaa laakiin wuu sabray qofka markuu sabro aamusu ka tagane haduusan ku caafinin ilaahu kaaga dacwoodi ciqaab waxa lagaaga dhigay mar walba ninkaaga habeenkii wada kulantaan oo seexatan lagu yimaado lagu dhaho adigu walaalkiyaad nolol iyo farxad la wadaagaysa anigu dartaayaan qabri ugu jira dunidan ugu tagay waa hadal runtii aad u xanuun badan waa hadal murugo leh marka anigu waxaan ku dhihi lahaa shalay beena sheegtay dadaa kala qarisay dadaa qiyaantay anigu taladeedu waxay tahay ninka ku qabo inaad xaqiiqada u sheegto lama horaaytan weligaa way kugu taagnaanaysaa inaad xaqiiqada u sheegto aad dhahdo runtii aniga waxaa jiro qalad weyn oo noloshayda aan galay qaladkaane waa midka i haysto waa midka ila yaaban tahay maantay u wad ma dhalin 3 sano ay qabtaa murugan ku noolahay habeenii maalin baqdinaan ku jira quraan waa la isaaray meel walba waa liigii sababtay wax walba ii qaban laayihiin wax kale ma ahan dhibaato anigu aan geystay ayaa i haysato maxay tahay markuu ku dhaho runta sheeg maray nafta go'daa laakiin adigoo run sheegay dhimo waxa ku tirahdaa walaalkaygiyow adiga iyo walaalka muddo 3 sano ayaan ii waday maanan ogeyn asal dhalteen maalinta walaalka shaqada u raadinaysay ee gabar walaashay ku aragtay aan ku dhahay maalintaas ayaan ogaaday in asal dhalteen aqligayga doqonka muuna shaqaynin walaba wiil walaala ayaa la socotay marka kala jar xataa kuma aan fikirin oo mid u go kuma aan fikirin waan iskii waday 5 sano ayaa adigu ku buuxiyay walaalkaana 5 sano iyo 6 bilood ayaa la socday ugu dambeyn markaan ku dhahay wiil adeerkay ay soo doonanayo wiil adeerkay ma soo doonanaynin waxaan rabay walaalka inay aroos ka dhankadiisu ku noqdo si arintaas meesha ugu danto ugu dambeyntii adigan ku doortay markuu walaalka guurka maqlay uu soo wacay wuxuu yiri ma gabar ku lalto walaalkii la socday waxaan ku dhahay maya qofka waa aniga ugu dambeyntii walaalka wuxuu igu dhahay waayahadiisa waa mid dhibaatada igu hayso maantay kale wuxuu u dhintay ani si sax ma ogi laakiin habeen walba ani aan isku tagno marka adigu seexato waxaan la jiifa la ahay la murugeysanahay walaalka ayaa horteeda soo istaagayo gacmihiisa cad yihiin lugihiisa cad yihiin wajigiisa cad yahay dhar cad isagoo wato wuxuu igu dhahaa adigu walaalkay ayaa farxad iyo nolol la wadaagaysa aniguna adigu dartaa ayaan qabri ugu jiraa adduunyadani adigu dartaa ayaan ugu tagay ereygaas uu dhahaa doodku iyo aadiya markaas ay noloshayda qalqashay waxaan soo biyoon garan lahay xaqiiqada dhabta 3 sano iyaan qarinay intaan ka badan waa qarin waaye arintaas ayaa i haysato aniga runtii talada aan ku siinayo ugu fiican waxay tahay midaas waayo qof markii uu dhinto ehelkiisa dii ay qaataan qofka way cafiyaan kulley maantay ehelkiisa ina xaqiiqada la wadaagto ninkaaga ina runta u sheegto wixii dhici doono ilaah umba og ku cafin doonaana ku qabsan doonaana ilaah og laakiin waxa ku dhihi lahaa xaqiiqada dhabta ee runta la wadaag ninkaaga anigu talada aan ku siinayo waa midaas tala kale aan ku siiyo waaya sii qari hadaan ku dhaho dambigaaga qarsaan ku dhahay habeen walbana waa lagu iimaanaya hadii adiga ninkaaga isku tagtaan marka anigu talada aan ku siinayo waxay tahay xaqiiqada dhabta runta lama horo runta waa mid raagaysa beenta salma laha way dhamaataa laakiin runta xaqiiqada dhabta u sheeg wixii aad qarin karto waa soo qarisay xaqiiqada u sheeg wixii ilaahay kuu qoraan la kulmi doontaa culayska inuu dagaal laga yaaba laakiin xaqiiqada wiilka walaalkii ninkaaga
u sheeg anigu talada intaasan ku siinaya qof walba oo muuqaalkan arka marka anagu maxaan ka faa'iidna waa maxaan talo u siinayna talada qof walba isaga u deynaya qaybta qoraalada ila ku siisaan idinka talada wartay kulli aniga taladeeda waa aragteen waxaan iri xaqiiqada u sheeg ninkaaga waayo runta lama qariyo maxaa soo haray talada idinka idin siinaya marka waxa ogaataa maanta marka tahay gabar yar qurux badan ama wiil yar oo qurux badan beena sheegaysaa wax walba suubinaysaa dambiya galaysaa inta ka boodaysaa waxa soo inay ka harayaan ma malaysaa maya da'daada way soconaysaa waxaasna way ku daba soconayaan hadaad wanaag suubsato wanaagaaga wuu kula soconayaa hadaad xumaan suubisane xumaanta ayaa kula soconayso gabadhan maanta maxaa haysto waxay suubisay 8 sano ka hor waayo 5 sano ee wiilashan qiyaanaysay 3 sano ay hadda ninkaan isqabaan wiilkaas ay dhintay laakiin 5 sano iyo 6 bilood ay qiyaanaysay bilaha iska dhaafno 8 sano ay noloshan ku jirtaa noloshan ay ku jirtaa waxa ay inta qarin karto waa qarisay dhibkaan soo kuma haysto quraana lagu saaray isbitaal lagu geey meeshaadi soo ma taagnid runta aa qarinaysa iska dayso ilaahay wuxuu ku qoraa kugu dhacay xaqiiqada dhabta ah u sheeg wax walba oo hore ah u soo soobisay ninkaaga la wadaag anigu talada intaas u sii marka idinka waxaan rabaa ina kuwaana qaadataan waxyaabaha maanta suubinaysid bari way ku daba socdaan waa ina kuwaana qaadataa qisadan waa ina kuwaana qaadataa hadaad gabar tahay wiilka aad la socoto daacad u noqo qof kale ha ku qiyaanin maantay fursadaas waad sixi kartaa hadaad 2 wiil la socotay 4 wiil la socotay inaad halka daacad aad hal daacad ina u noqoto inta kale isaga harto beritoole waxa dhacayso 5 wiil qalbiyadooda ina dhaawacdo adiguna bari markaa guursato gurigaaga dhibaato iyo rafaad qaarkeed maxaa aragnaa xal la aroosay waa la soo furay maxaa lagu soo furay ma la yaqaan dhibaatay gashay ninay lacag ka soo cuntay gabaru soo qiyaanay taas qabsanayso sayna ku qabsanin wax walba aa suubinaysid miisaan ha ku miisanaadaan wax walba aa suubinaysid xakamay maxaa ka imaan kara sidee noqon doontaa fiiri khiyaanada ma fiicno khiyaanada iska ilaaliya qof hal laqdabeynina wallahi noloshiina dambe ayaa u dambeynta bal fiiri gabadhan ma isdheeysay labada wiil markay isku waday noloshaada saanay noqon doontaa wiilka dhintaa habeen walba ku imaanaya marka ninkaaga waqti la qaadato may ku fikiraysay jawaabtu waa maya sirta noloshaada qof bid aadan ah ha dulminin hadaad dulmiso ka dhacane afis weydiiso maantay qisadan haday ku soo gaarto oo aa qof dulminaysid dulmiga qofkaas aad dulminaysid ka joojiyo afis weydiiso hadaad wiil tahay oo dhowr gabar aad isku waday hadaad gabar tahay oo dhowr wiil aad isku waday maantay qisadan kuwaana qaado mar walba waxa idii soo gudbiya qisooyina isla way kuwaana qaadanayaan 10 way u noqonaysa waxaan rajeenayaa qof walba oo hiigsi ku xiran wax badan inuu ka baran doono wax badan oo iska joojin doono wax badan oo iska ilaalin doono mar walba noqo qof wanaagsan mar walba noqo qof daacada hadaa tahay qof walba oo dhibaato adigu ku geysto isaga tacamal ku dhacaysa iyo wax ka daran ku dhacaysa laakiin adigoo hiigsi ku xiran qisooyinkan daawanayo haddana inaad dad dulmiso dad dhibaatayso wax qurux badan maaha waxaan rajeenayaa qof walba oo hiigsi ku xiran inuu kuwaana qaato qaybta qoraalada fikirkaaga iyo taladaada adiguna ku sii xora u tahay muuqaalka hadduu yahay muuqaalka kugu horeey subscribe saaro like-gaaguna waa noo dhiirigelin si qisooyin kale ula socoto walaalaha qiimaha qadarintii sharafta mudan ee Higgs Labor ku xiran mar walba qisooyinkan iyo kuwa maaragtay kuwaana qaadanay inoo soo gudbiyo ee dhageysta waqtigooda qaaliga geliyo waa ku mahadsantihiin waxaad ka codsanayaa inaad muuqaalka like gareysaan asxaabtiina u share gareysaan saa idinka ugu faa'iideen ee kana ay ugu faa'iidaan uguna waana qaataan waxa laga yaabaa muuqaalka inaad share gareyso qof dulminayo uu arko uu iska dhaafo ayaa laga yaabaa marka asxaabtaada u share garay gabdhaha qiimaha badan ee groupka ku jira ee muuqaalada share gareeya horumarka Higgs mar walba u taagan waa mahadsantiin halkiina ka sii wada qof walba oo dadaala Higgs u dadaala runtii qiimo gooni ah oo ii leeyahay waxaan rajeenayaa Higgs horumarkiisa inaan ku dadaalno safarkeeni 300 oo kun oo subscribe ayaan ku soconnaa qayb nagala noqo waxaan rajeenayaa kuwaan iyo kuwa kale kuwaana qaadataan mar walba inaan idii soo gudbiyo halka iga daawanaysaan waa YouTube-ka qisooyinka ee Higgs Labor 1 anigu waa Subra Carab mar walba waxa idin leeyahay ha guuleysta jacaylka halkani waa hooyga qisooyinka ee Higgs Labor 1 mar walba waxaan ku soo gudbiyaa qisooyin xaqiiqa kuwa muruga oo qalbigaaga taabanaya kuwa aad ku farxi doonto iyo kuwa aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan mar walba waxaan diyaar kula ahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan subscribe noo dheh una share gareeya asxaabtaada hayloobin page-kana inaad follow noo dhahdo mar walba waxaan ku leeyahay ha guuleysto jacaylka waa anigoo ah Subra Carab